magaalo la yiraahdo Suudaan ku taal wadmada in la yiraahdo baa waxa ku noolaa nin nimanka hiliblayaashu madax u ahaa madaxa hiliblayaashu marka lacag buu haystay nin iska ladan buu ahaa laakiin aqoon ma lahayn marka meelaha aqoonta lagu sheegay oo dhan buu ku jeesaysi jiray jaamacadaha qalin jabuuti tagi jiray wuxuu leeyahay aqoon maxay sheegaysaa hadaan waxaan ma aqaano intaas oo boqolaal aqoontan waxa ma haystaan waxa soo akhrin jiray marka maalmaha kamid jaamacad shaqada ka socotay buu wixii ka akhriyay marka oday in dhoolaa istaagay marka wuxuu ninkii imika hadlayay aawe waa aniga wuxuu waxaan ku weydiiyey imaam shaafici iyo abu xaniifa iyo axmed bin xambal iyo imaam maalik miyaa taqaana haa wuxuu meen noolihim soo dhintay ma way dhintay goormay dhinteen 1,000 sano ka hor okay wuxuu hiliblihii waqtigooda magiciiba la oran jiray yaa yaqaan nimanka waxa magaca u yeelay ilaa hadda magacooda in la hayo waa cilmigeeda laakiin 10 hiliblo cid garanaysa mar oo marka nool marka cilmigu qiimo ku yeelay adiga qasam ma inaad lacag ku hesho qasam ma inaad madax ku noqoto laakiin sidiisu qiimo u leeyahay cilmigu walidaalika ma ogtahay nabiyullaahi ibraahim ilaahay muxuu weydiistay ilaah wuxuu ummadaha dambe weligay magacaaga inay hayaan waj'al li lisaana sidqin fil aakhir مقرأت ولذلك محلنا فريق صلاة كستون تكرر النبي رأينا قدرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على